Amoud Foundation oo sii wada taakuleynta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Togdheer ayaa waxay gaarsiiyeen deeq biyo oo gaadhaysa 20 booyadood deegaano kala duwan oo hoos yimaada gobolka Togdheer waxaana ka mid ahaa deegaanada ay gaarsiiyeen kala dhac Yurobe Balinasiye iyo Warka iyo sidoo kale Tuulacado deeqdaasi biyaha ay gaarsiisay hay'adda Amoud Foundation ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadku baahi weyn u qabaan biyaha ugu horreyn waxaa ka warbixiyay deeqdaasi biyaha Cabdiqani Maxamed Axmed oo ah maamulaha gobolada bari ee hay'adda Amoud Foundation. hay'adda Amoud Foundation runtii waxa ay maalmahanba waday biyo dhaamis ballaaran oo ay ka waday gobolka Togdheer maanta waxaan soo gaarnay oo hay'adda Amoud Foundation ugu talagashay biyo dhaamiska magaalada kala dhac iyadoo sii wadi doonta oo sii gaari doonta magaalooyinka kale ee ah Yurowe iyo Warka Tuulacado iyo Balinasiye iyadoo hay'adda Amoud Foundation ka jawaabaysa baahiyaha ka jira deegaankan ee abaartu saameysay insha Allah ta'ala waxaan sii wadi doonaa biyo dhaamiska inagoo sii gaarsiin doona deegaamada aan soo sheegnay hay'adda Amoud Foundation biyaha ay ugu talagashay ay maanta soo gaarsiisay runtii ay dadkani aad iyo aad ugu baahnaayeen haddii la aydmana waa sii wadi doonaa qaar ka mid ah dadka la gaarsiiyay deeqdaasi ayaa dhankooda ka mahad celiyay deeqdaasi la gaarsiiyay biyaha waqti baa ka dhacay abaaro ayaa dhacay tuulooyinka saameeyay iyo abaaro marka biyahana waan u baahnay waqti baa ka dhacay abaaro ayaa dhacay tuulooyinka saameeyay iyo abaaro marka biyahana waan u baahnay si aad baan ugu baahnay waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Amoud Foundation ee biyahana soo gaarsiisay waan u mahadnaqaynaa ilaahay annagana noo calfo iyadoo ilaahay ka jaaysiiyo iyadoo waqti adaga oo iyo biyaha loo baahan yahay dadku aad iyo aad ugu baahan yahay iyo nala soo kulmeen hay'adda Amoud la yiraahdo inuu ilaahay ka tsaasiyo jecelahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan soo duceynaa ma sha Allah tabarakallah sidaan ugu baahneen oo kala ma jirin adduunyada haraad baa la hayay dhaciyaalku waa laga haraaday anagu waa haraadnay qoos waxaan ku qooshnay waan weynay biyo la'aan xada waa la haysay haddana biyihii waa la noo keenay ma sha Allah ma sha Allah hay'adda Amoud Foundation aad iyo aad biyo noo keentay aad baa igu mahadsantahay ilaahay khayr la ka siiyo anagana ilaahay ha noo calfo waxaan intaa ka bacdisana biyaha qura ma abaartu way beentay raashin iyo biyo dadku u doonaya hay'adda Amoud Foundation ayaa hay'addii ugu horeysay ee ka jawaabta baaqi xukuumadda ee ahaa in lala taakuleeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Togdheer